kulan wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta hawada naga daawanaysa halkan waa channelka Dulmidi YouTube kuna soo dhawaada saaxiibayaal warbixin gaar ah in ku eegi doono hadduu Allah awood loo ogolaado Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde hadaba Nuur Cadde waa nin caynkeeya maxaa si ka taqaan si taariikh caynkeeya ayuu leeyahay anagoo ka soo bilaabi doono 1937 oo ah waqtigu dhashay ilaa iyo sanadkan 2020 marxaladii kala duwanaa ee uu soo maro Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde hadaba fadlan inta aanan warbixinteena gudagelin hadiiba ay tahay markii kuugu horeyso ay aad aragto channelka Dulmidi YouTube ha ka ilaawina subscribe ta saarato gambaleelka u furato si aad ugu mid noqoto saaxiibada sida joogtada ah ugu xiran warbixinooyinka iyo barnaamijyada xiisaha leh aynu soo gelino halkan mahadsanid aynu gudagalno Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen oo ku magac dheer Nuur Cadde waxa uu dhashay 16 February sanadkii 1937 waana ra'iisul wasaarihii 12aad ee taariikhda Soomaaliya soo mara Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii ugu horeysay uu qabto oo ka bilaabay qaybta kastamka oo uu markii dambe ka noqday sarkaal sanadkii 1958 laba sano ka hor madax banaanida Soomaaliya waxa uu ka mid noqday saraakiisha booliska caalamiga ah ee loo yaqaano Interpol tababar ciidan oo dibadda ah waxa uu diray madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre kadib markii uu tababarka soo dhameystay waxa uu daraaseeyay kulliyadda sharciga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo iskuul lagu magacaabo Fiscal Law oo ku yaala magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga Nuur Cadde waxa uu noqday qareen kolkii ay dhacday dawladdii kacaanka sanadkii 1991 dalkana uu galay burbur waxa uu noqday xogayaha guud ee ururka bisha cas ee Soomaaliyeed 22 bishii November sanadkii 2007 madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka Kenya Allah u naxariistay Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde kadib markii uu isxasilay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Cali Maxamed Geedi 29 Oktoobar isla sanadkaasi Allah u naxariistay marxuum Nuur Cadde markii uu codka kalsoonida ka helay baarlamaankii ku meel gaarka ahaa waxa uu waqti kooban kadib ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 37 xubnood 31 wasiir iyo 31 wasiir dawle iyo waliba 31 wasiir ku xigeen 17 bishii December waxa isbedel lagu yareynayo xukuumadii ka koobneed 37 xubnood lagu sameeyay waxaana la magacaabay xukuumad cusub oo lagu soo koobay 17 wasiir 5 wasiir ku xigeen iyo shakhsiyaad ka baxsan baarlamaankii xilligaasi 10 bishii January waxa wasiirada cusub ansixiyay baarlamaanka kadib markii codeyn loo sameeyay kalsoonida lagu siiyay 223 cod waxaana ka soo horjeestay 5 xildhibaan halka laba mudane kale ay ka aamuseen codeyntaasi Allah u naxariistay Nuur Cadde waxa uu dabdhaxaad u noqday wadahadaladii dhex maray dawladdii ku meel gaarka ahayd ee waqtigaasi iyo garab ka mid ah maxkamadihii oo saldhigtay Djibouti waxaana ugu dambeyntii la dhisay baarlamaan ka kooban 3 dhinac oo kala ahaa dawladdii ku meel gaarka ahayd maxkamadihii iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Allah u naxariistay Nuur Cadde waxa uu xafiiska ra'iisul wasaaraha u qabtay sanadkii 2007 waxa uuna baneeyay sanadkii 2009 kadib markii Djibouti lagu doortay madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna ra'iisul wasaare muddo kadib u magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke 27 Maarch sanadkan 2020 ayaa la xaqiijiyay in uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde uu ku dhacay coronavirus walow barta ay bulshadu ku xiriidho lagu baahiyay waqtiga in uu geeriyooday Nuur Cadde hase ahaatee saacado kadib ayaa la xaqiijiyay in uu nool yahay balse uu isbitaal ku jiro Nuur Cadde ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay la xanuunsanayay cudurka coronavirus isagoo ku jiray isbitaal lagu magacaabo King's College oo ku yaala magaalada London Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa saaka oo ay taariikhdu ku beegneed 1 bisha Abriil sanadkan 2020 ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska geeridan ku timid Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum Nuur Cadde ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay Xaaji Maxamed Nuur Cadde sidoo kale Xaaji Maxamed Nuur Cadde oo ah wiil uu dhalay marxuumka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in lagu aasi doono ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde magaalada London ee dalka Ingiriiska inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut